السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا غري جلوبال نتورك maanta waxaan idin haynaa wareysi aan la yeelanay ugaaska Karimaraha ugaasyonis wareysigana waxaa noo diyaariyay walaalkeena Xaaji Mukhtaar kusoo dhawaada wareysiga waa sida tan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مختارو ugaas waxaan kaga soo wacayaa idaacadda Gari Global Network ayaan kaga soo wacayaa ma garatay waan gartay iyo labada maalmood ka socda gobolkiina Liibaan degmada Doolo qashqash iyo mudaharaad waxba ka socda oo idaacadii iyo social media barta bulshada dhammaan yacnaha waxa ka buuxshay oo laga arkayaa ina qashqash ka socdo marka arrimaha inaan ka wareysi dartii waan ka soo wacaya waxaan joogaa stuudiyaha Gari Global Network marka ugaas ku soo dhawow wixii ka socda ma ka jiro xaqiina gobolka Liibaan xaaladda guud jawiga guud inaan ugu warantaan rabo ma garatay waan gartay marka idaacadda ku soo dhawow magacaadna ku bilaw bal wixii war aad noo hayso oo noo faahfaahi oo noo kala bixi soo dhawaan ku leeyahay وأدعو والله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مركو هرو مدعيق وعليها وسيونس عمر المعلم عبد الرحمن بالله وحن سلامة يا إذا عبد الجري كلوبال أيان سلامة يا سيدا يوسف دوين ورئيسان إن إذا قادم آد وهم سنين وقد نسوا دوينا بقولات نسوا دوينا يا كارهان أديك مختار ورئيسي قاضي بان سلام يا كدي أدي عن وجود كلا ورئيسي إذا عدا ما وراك كجرا معلمان دولو قدو أما قبل كليبان واسح واسم الجرا وقت أنت أيضا حالوها يا قرمرة يا لوها يا قرمرة تاريخها كل سلو دوكسوني هاي وحكون له هاي سدح دقمة إسكسر الجودة دقمة وحالي دولة الصومالي لك قليل كتالا دقمة وحي كتالا دقمة الدولة وأدو بالي ذا كان كليبان بي كتالا وأدو بالي ذا دقمة وحي كتالا دقمة الدولة وباي دينا عفير بي كتالا مركا كرمرها حلقي سهرة وحو دقناي كذا كينيا iyo geda Soomaali deganay geda Kenya uu ka soo baxay oo marka inta badan halkan wuxuu soo gudbay geda uu ka soo gudbay oo wuxuu soo gudbay afdo meeshliira Sofia gaareen uu degay xaq uu ka soo guuray Doolo iyo Sof iyo Sade iyo boqol ma intaan buu degay marka dhinaca Kenya uu degan yahay dhinaca Soomaaliya uu degan yahay hadda matana inkastoo dhinaca Itoobiya ku badan yahay labada gobolka Afrika gobolka Liibaan uu ku badan yahay laakiin Soomaaliya Kenya uu degan yahay marka waxaan ugu socdo waa kulli marxalad culus xaaladaasna waxaan ugu hayo waxa weeye qabiilka liidaha Djibouti ayaa inagu hayo xilligii isbedelka dawladii Abdi Maxamed Umar markay isbedelku u dhacay oo la matana in xaaladda laga soo gudbay labadii sano u dambeysay hadda matana dawladdan matana dibroshadii xilliga laga soo laabtay oo matana cid walba leeyahay ismaamusho gobolkeeda iyo dadkeeda iyo matana deegaankeeda maamusho leeyahay anaga gobolka Liibaan ma ka tirsanay waxaa dhacday in in lagu sameeyay maamuladii marka la dhisay in si aan matana habsami aan ahayn macquul ahayn matana loo dhisay gobolkii macalimiintii in loo dhisay anaga degmada waxaan deganahay degmada Doolo wado iyo degmada Boqol Maayo gobolka Liibaan degmada Boqol Maayo hal ana xafiis baa nagala siiyo horumarinta xoolaha oo matana markaas iyada islahay qofka dhisay kulli xafiiskan wuxuu ka bixi doonaa tajirku ka bixi doonaa oo macna uu baabi doona xanteeda Italian la siiyay Doolo waxaa nagala siiyay xafiisyadii ugu fiicnaa sida maaliyadda iyo beeraha iyo caafimaadka iyo dakhliga iyo maaliyadda waxaa soo dhan xafiisyada horumarineed xafiisyo horumarineed oo matana baajid leh oo xafiisyo horumarineed matana waa nala diiday waxaana la siiyay sport iyo hooyooyinka iyo dadweynaha oo xafiisyo matana arrimaha bulshada laakiin dhaqaale ahaan matana kulli dan xafiisyada matana horumarineed dakhliga iyo maaliyadda waa nala diiday annaga oo matana xaq u leh إننا مركز إذا قضية متقامة على هذا كل ترتب إلى كل نهاية
marka intaas markii ay dhacday haddana marka ay dhacday in la yidhaaha ismaamul baa laga sameynaa degmada ismaamul mataqaanaa ismaamul magaala laga sameynaa qorshe ay qaadatay dowladda deegaanka xaaladaas marka nimankii ama wasiirada dowladii waxay sameeyeen dhulbalaasi waxaa la yidhaha dhulbalaasi ay sameeyeen waxay sameeyeen marka suuf in qaatay suuf jiro-aan qabaleha la yidhahaa inay mataqaanaa xilka ka qaadeen ninkii markaa halka guddoomiyaha ka ah oo gara qabalaha booriyaalnaba ay ka qaadeen waxay u dhiibeen in masaraha loo dhiiba qabalaha booriyaala qabalaha suuqa waxaa loo dhiibay nin afshaha anaga marka waxaa noqonay ku-xigeenyaal nagala dhigay ayagoo marka targeedkooda u yahay in la qaabiyo magaca garamara in halka laga qaabiyo ujeedada xitaa mataqaana gara baadiimaada laakiin gobolka liibaan waa nabadgelyo garamaraha ku nool mataqaanaa indhahay kala baxaan maadaama leenahay ayaga oo arrinta iyada ayulahay leeyihin mataqaanaa gobolka daawo ayaa xuquuqdinhan mataqaanaa aan waynay halkan inuu gara mataqaana ku noolaada ma ogolin sidaa darteed ayaa noola qaadinaya ma garatay aad baan kuu gartay ugaas aan kaa dhexgalo marka warbixintaada ka hore waxaad leedahay guddoomiyaha qabalaha zero-and suuftu aada laga qaada ay leedahay daraadan waanta la xiriiray odayaasha dhaqanka oo joogay qabalaha naftiis joogaan la xiriiray meeqa kursi waay hadda linka qaatay meeqa kursi la dhihi karaa oo hadda yacnaha qashqashkan sababtaas ka bilowday aad baad umahadsan tahay waa 3 kursi qabalaha zero-and qabalay baa la yidhahaa qabalay ugu horreeya oo suuf mataqaana lagu asaasay annaga ayaa la helnay weligeen ilaa xayl salaasi waha kursi hadda mataqaanaa dowladahan xitaa ma ahayn midista xitaa uu ka horreeyey kursiga asaga ah suuf magaceeda maalinta la bixinayo soodari dhihi jiri hoos webiga ay ku jirta intaan laga soo bixin mataqaana ayaan lahayna qabalahaas marka guddoomiyahaas waa la qaaday oo mataqaanaa abusha mataqaana la yidhaaho jirib degodi ka tirsan lagu magacaabay booryaala waa la qaaday waa kursiga labaad mataqaanaa kursi saddexaad waa zero huleeta qabaley ayaa la yidhaha iyadana suufa laba qabaley ah zero huleeta qabaley oo hogaankii aan kulehayna ayaa la qaatay 3 kursi ayay mataqaanaa ayaa sidaas ay u qaateen ku dhaceen kuraastan hadda la dhacay ama linka qaadan rabo ama linka qaatay waa kuraas heer qabalo waaye xagga degmada ama waxaan dhihi karaa xagga zooniga miyaad wax ka leedihiin kala degmada kuraas baan ku leenahay laakiin aan lahaan muhiimadda waa qabalay Ethiopia nidaamka ka jira waxay ku dhisan tahay qabalay baa la yidhahaa waxa doorashada lagu galo mataqaanaa seejooyinka lagu bixiyo waa qabalay waxa mataqaanaa deegaannimada mataqaanaa dadka lagu tilmaamo waa qabalay markaad heshidood mataqaanaa degmo ayaad mataqaanaa imaan kartaa degmo marka laga soo gudbo gobol baad imaan kartaa gobol marka laga soo gudbo waxaad imaan kartaa kilil kadib ilaa heer federaal noocaasa mataqaanaa u dhisan tahay Ethiopia marka ujeedada waxaa weeyaan in beriid markii qabaleyaha la qaato waxaa ku xiga kursiyaasha mataqaanaa degmooyinka ayaa ku xiga in la qaato marka waa wax isku xirno silsilada marbo mataqaanaa haddii qabalay la qaata qabalay waa asaasi dowladeed mataqaanaa ku dhisneed tiirka asaasi dowladeed ay kasoo bilaabanaysa waay ay miyaa la dhihi karaa hadda arrimahan hadda shalay ka socda ama social media laga arkaya idaacadooyinka gobolka maxaan ku yiraahdaa ama countiga Mandera laga sheegay tan iyo shalay miyaa la dhihi karaa arrimahan waa arrin liska warhaayo xagga yacnaha Ethiopia iyo Kenya xiriir miyay yacnaha la dhihi karaa inay xiriir leeyihiin horta waa sax xaaladaas xiriir bay leeyihiin nimankan waxaa fikirkooda u yahay daawo markay ku guuleysan waayeen oo inay mataqaanaa wax dhacaan iyo waxaan dadaan markay ku guuleysan waayeen ujeedadooda mataqaanaa waa gobolkan liibaan in ay mataqaanaa xooga saaraan naga tirtiraan ay rabaan waxaa naloo sheegay inay mataqaanaa hub doonteen oo halkaas mataqaanaa ilaa iyo cabdirashiid janan iyo halkaas beled xaaw in la aaday dadkiina in la qabtay lacagtina in la qabtay naloo sheegay waa xiriir mataqaanaa ka dhexeeya aan dhihi karnaa xaaladan hadda mataqaanaa doolow ka jirta gobolka liibaan iyo xaaladaas mataqaanaa Mandera ka jirta waa xaalad wada xiriir leh markii la eego
ujeedadooda iyo qaabkooda in annaga mataqaanaa waxay nagu yidhaheen garbaadiyo dhiiggiisa xalaal noo ah annagana mataqaanaa dhiiggayna xalaal u ah haddii aad adinka mataqaanaa hoosta gashateen aad guddiga gashateen garbaadiyo annaga mataqaanaa meeshii garbaadiyo u joogaan noo joogtaan haddee halkaas waxaad saaraysaa marka in dagaal uu ka socdo gobolka hiiraan la iclaamiyey oo si toosa loo iclaamiyey in dagaal uu nagu socdo marka waxaa markaati u ah qabaleyadii mataqaana aan lahaynay ilaa xeeli salaase waddanka waxaa xukumayey sida xaqiiqada ama taariikhda waa dib loogu laami karaa waa la eegi karaa ilaa iyo xeeli salaase ilaa iyo mugista xeeli maryan saddex dowladooda weyn ugaas Yunisow aan ka dhaxgale shalay iyo daraatan leeyahay magaalada Doolo Odo ka socda mudaharaadooyin iyo banaanbax laga soo horjeedo arrimahan dhacay maanta xaaladiga jawiga magaalada ma nagu warami kartaa waa sax jawiga magaalada waa ninka warami karaa banaanbixi markuu dhacay banaanbax nabadeed buu ahaa rabashada weyn oo magaalada mataqaanaa in lagu sameeyo ama dhac ama boob ma jirin si nidaamsan ayaa mataqaanaa caawashadaan u muujinaynin mataqaanaa dowladda federaalka iyo dowladda kililka inay aragto annaga labada sano u dambeysay waxaan ku cabanayna mataqaanaa dowladda kililka waxaan u cabanayna mataqaanaa nimankan digoodiyo ninkan xarunta dhexe jooga oo la yidhaah maxamed jaalla cabashadii mataqaanaa waxay dhacday qabaleyadii loo dhaca marka waxaan nidhi bal aan muujina cabasho mataqaanaa si toosa loo arko live oo la arko oo la wada arka sidaasaan cabashadii ku muujinay kadib markii mudaaraadku dhacay kadib qoladii ciidamadii mataqaanaa military maqaatalayaga ay doolow deganaa waxay yidhaheen odayaashii ay u yeedheen waxay yidhaheen marka halkan waxaa kusoo dhex dhuuman kara al-qushaash iyo mataqaanaa al-shabaab iyo wax baa kusoo dhex dhuuman kara adinkana waan idin aragnaaye xuquuq baad doonaysaan waa sax xuquuq baa idinka maqan marka annaga inaga warsug joojiye mataqaanaa arrintan waan ogaanay meesha ka socota sidaa mataqaanaa maanta lagu joojiye oo mudaharaadka ku istaaga maadaama jawiga hadda adduunka lagu jiro xilliga maaragtay coronavirus iyo cudurada laga sheego wadamaha yacnaha dadka isku imaado mudaharaad sameeyo miyay yacnaha sharcigi ama qaanuunka u yaala adduunka hadda yaa dadka kala fogaanti dadka yacnaha in la kala fogaado miya yacnaha ka hor imaanayna mudaharaadka ugaas waa sax inuu jiro coronavirus adduunka inuu jiro dilaa u yahay oo mataqaanaa dhibaato badan uu ku hayo adduunka naf iyo maalba waan aragnaa balse laakiin sirtirtirka ka daran qofka marka la gumaysto oo mataqaanaa si mataqaanaa dowladnimo lagu gumaysto horta qabiil ma gumaysan karo laakiin markii shaati dowlad lagu gishto oo dowladda la iska dhigo mataqaanaa shaatigeedu qofku uu soo gishto si qabiilnimada mataqaanaa uu kugu dilaayo waa wax mataqaanaa aan loo adkeysan karin marka nimanka dowladda waxay noo samaysteen in shaati dowlad ay noo gishtaan gacan qabiilna ay nagu dilaan marka reerkii waa reer la baabi'inayo dhammaanayo marka intii korona uu samayn lahay inay xaqooda u dagaalamaanay mataqaanaa ku dhintaan ay mataqaanaa xaq ah haddi magaalo ma joogtaa ismail magaalo ka baxsan baa joogtaa adiga maadaama aniga kuma yacnaha su'aalahaas inaa yacnaha ka hormariyaa la rabay laakiin magaalo doolo maad joogtaa mise waa meel ka baxsan baad joogtaa adiga maya walaal aniga jigjigaan joogaa caasimada dowlad deegaanka soomaalida ayaan joogaa halkan cabasho baan u yimid madaxweynaha dowlad deegaanka mudane madaxweyne mustafa inaan arko wasiiradiisii mataqaanaa cabinetkii dowladeed inaan mataqaanaa intaan u sheego waa cabashee inaan cabashaas mataqaanaa usoo gudbin halkaan u yimid jigjigaan joogaa hadda waxaan kaala soo hadlaya waa jigjiga ma dhibka markuu dhacay baad u ambabaxday mise ka hor baad jigjigaad joogtay dhibka markuu dhacay ayaan soo baxay dhibka markuu intuu dhicin ka hor waan ballansanaay madaxweynaha inaan arka wuxuu yidhi ballan baan kuu qaban waa cabashada mataqaanaa dhibaatadan ayaan u sheegaynay laakiin waxaa dhacday markaan madaxweynaha wada hadalnay in la yidhi bal ugu sii dara hadalkii madaxweynaha waxay noqotay bartaada cari laga qaad madaxweynihii marka wada hadalay oo ay maqleen horta walaal haddaan kuu sheegay mukhtarow waana la caburiyey waana la cadaadiyey in xitaa madaxweynihii dowlad deegaankaan aragnaa naloo diiday heerkaas marka waxa waaye dad baa gaarsiin ninka xarunta dhexe ee xisbiga jooga dowlad deegaanka nin qabyaalista ah nin mataqaanaa waxaa la yidhi waa nin injineer ah wuxuu baranaya waxaan yidhi jaamacad intuu ku jiray waa nin mataqaanaa qabyaalada uu baranaya inuu yahay mataqaanaa nafteeda aan u arkaa aad buu noo caburiyey wuuna cadaadiyey madaxweynaha xitaa wuu naga qariyey in badanaan kahosanay
ونودي دي مركب مدحوينها حلبان أنا وحلبان صوبان لي راو تجي أصلا مثلا التليفون كي يودي ويقول الله هذا مركب ولا هذا اللي هو قاعدين وفي وركع يودي ونوقعي ملكوا أنت مركب جديدة تكتي مدحوينها ملكوا أنت مثل ولي واتسويسا وانسويا مدحوينها مجو وحجرا سبب وجرا إن شاء الله نحن منا أكبر وحجينا إلى وقتigan uu gaaban adoo raali marka maxaa fariintaada guud oo reer yacnaha liibaan ama reer garmaraha ama garaha guud ahaan fariintaada maxaa weey adoo chance ka faa'iideysanaya ugaas Yunus waad mahadsantahay walaal horta garmara waxaan farayaa inay midoobaan maadaama cadowgoodii uu mataqaana u midaysan yahay in ay midoobaan jiritaankoodii waa la baabiyay ayagoo mataqaana la yaqaan xilligii wadanka mataqaana dadka baabiinay waa dad kusoo kordhigay oo mataqaana إلا يصدق السنوات اللي مثلا حلقي سياق بردولي سيد علي تتصور داعي طريقة أنا في وضع كنت يدقين وبقول الله بعد مستي سنة يدقين سي أنا أقول نوش تطبيعش نوش شيئين بكان أما عيقة بالشيئين مثلا أنا مركان ورئيسين يدقوديها بكي سبت طباب بقول يتطبعات لبطنا الدقناي إنا مثلا كسر دولاني ويبابين أي مركا ما دام السلاء عيتها إنا يسكد دفاعان وحق هذا يبدق على مانا ينفريا درمرة aad baad u mahadsantahay waad joognisow idaacadana ku soo dhawo waa noo mar kale insha Allah taala aad baan ku soo dhaweynayaa warbixintaada waad ku mahadsantahay baan ku leeyahay waa aniga ka faa'iideystay idaacadda waxaan halkan ka salaamayaa Sultan Maxamed Xasan Xaaji Gabaaba sultaankeena guud oo qarra insha Allah salaam boqolkiiba afartan ku salaamayaa sultaanada mataqaana qarra qofta qarra waan salaamayaa qofta qarra waan salaamayaa ugu horeeya ugaas Xasan Shiin ugu horeeya waan salaamayaa inay maqlaan oo maqalkeedii muuqaalkeedii arkaan aad baan u jecelahay inay ka jawaabaan mataqaana codsigeeda hameel u joogo dalka dibna aad baan u jecelahay sultan Yusuf oo joogo mataqaana guurtada gar hogaaminaya ama qofta gar alida qof gar hogaaminaya mataqaana qorshka mataqaana mandheera waan codsanayaa in arrintan ay mataqaana ay soo arkaan waxa sida ay tahay intaan ay soo eegaan mudana cali rooba saas oo kale mataqaana walaalkeen waan hambalyeynaya inuu ilaahay mataqaana ku asturo xilka uu hayo inuu ilaahay ku asturo insha Allah gaar meel uu joogo batuufka quraan ilaahay qorax ka dhiga cadowga gaar Allah hajiban leeyahay aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh Mogo na makal